بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا channel كان تفرين وفب ما أنت موقال كان وحن كوي دونا فرق الأول حياة wordpress.com إيو wordpress.org. وبسيط كم وحن كسميه wordpress.com وبلوج وكا سلايدز باللي هاي الخير waxaan ku sameeyay wordpress.com baan ku sameeyay kan waa website kale waxaan ku sameeyay wordpress.org ama self-host wordpress baan ku sameeyay. haddaba maxay ku kala duwan yihiin labadan garanay inay labaduba website lagu dhisan karayo, haddana waxa leeyahay farqi aad u weyn ayaa jira ama farqi aad weyn bay ku kala duwan yihiin. haye what is the difference between wordpress.com maxay ku kala duwan waa maxay farqi ay ku kala duwan yihiin wordpress.com iyo self-host wordpress ama wordpress.org? waxay ku kala duwan yihiin guud ahaan horta way kala duwan yihiin. waxay ku kala duwan yihiin wordpress.com waa shirkad bixisa hosting service-ka waa shirkad bixisa hosting service-ka. sidoo kale waxa ay leedahay oo wax weeyaan ku siinaysaa platform aad ku dhisato website adigoo aan waxba install karaynin, adigoo aan software WordPress install karaynin. hosting service-ka aynu naqaano sida Bluehost, Dreamhost, Network Solution, waxaas GoDaddy. waa inaad markaad doonayso WordPress inaad website ku dhisato, markaad service-ka iibsato waa inaad software-ka install karaysaa, software WordPress-ka isticmaali doonto install karaysaa. wordpress.com iyadu software kaagama baahna, software-ka WordPress-ku wuu la socdaa, waa pre-installed, marka hosting service ayaad ka iibsanaysaa. sidoo kale mid free way bixisaa website-kan imika anigu aan ku tusayo waa free, laakiin waxay la socdaa xayeysiin bay la socdaa, subdomain bay la socdaa, waxa soo bay la socdaa. kan laakiin never wax la socdaa ma jiraan, wax ila socdaa ma jiraan. okay waaye wordpress.com waxaan waa shirkad bixisa service-ka hosting-ka la yiraahdo. sidoo kale waxa ku siinaysaa platform ama website aad ku dhisato. waa maxay haddaba wordpress.org? wordpress.org waa maxay? wordpress.org waa open source content management system, waa software open source oo content management ama waa platform open source oo content management system website lagu dhisi karo ama lagu san karo. sidoo kale waa source-ka software-ka ay ku base garaysan tahay wordpress.com. marka labadaas way kala duwan yihiin. bal afar qodob baynu eegaynaa oo xagga dhisan garaynta iyo dhismaha website-da ah. afarta qodob waxay yihiin themes, plugins, hosting iyo flexibility ama ease of use. wordpress.org themes-ka maxay uga shaqeeyaan? waa full support themes kasta way aqbalaysaa wordpress.org ama self-host WordPress. theme kasta way aqbalaysaa in lagu shubo oo aad ku shaqeyso. wordpress.com themes-ka iyadu maxay uga shaqeeyaan? limited theme support, limited theme support wax kooban bay uga shaqeeyaan. 6 pricing plan, waxay leedahay 6 qorshe ay ku iibiso hosting-ka ay iibinayso. qaar kamid ah ilaa ka afraad markaad gaadho oo business plan la yiraahdo ama creator plan ayaad lagu ogolaanayaa inaad upload garayso third party theme ama third party plugin. okay marka waa limited ka free-ga oo kan aan ugu isticmaalay ayuu yahay. personalka, premium-ka waxaas oo dhan kuma shubi kartid theme. patterns waxay leedahay patterns-ka isticmaalaysa. waan gartay plugins-ka ka waran. plugins-ka wordpress.org waxay ogoshahay every plugin kasta way ogoshahay in lagu install karayo ama lagu upload karayo third party. wordpress.com ka waran. wordpress.com wax plugin la yiraahdo way aqbalaysaa ma jirto ilaa la gaaro business plan. hosting-ka ka waran wordpress.org qodobka saddexaad oo hosting-ka ah wax ay bixiso
oo hostina wordpress.org ama self host wordpress ma jiro. website-ka waad ku dhisan magaaladaad la geli hostingka meeshaad ka iibsanayso aday ku taalo. wordpress.com iyadu waxay ka shaqeysaaba waa hostingka way bixisaa waliba 6 pricing plan bay leedahay 6 nidaam ayuu waxa weeyaan 6 qorshe 6 qiimo oo kala duwan baa jira. qodobka ugu dambeeya ah flexibility-ga waxa aad u flexible wordpress.com. tanna waxay leedahay wordpress.org waa advanced options bay leedahay iyaduna aad customization website-ka ku samayn karto laakiin iyadu customization ma laha. marka aan sameeyo markan waayahay haddaba kii ayaa ugu wanaagsan markaad blogger tahay kii ayaa adiga ku wanaagsan marka aad blogger tahay ama professional ba tahay oo aad tahay qof professional waa qof clients leh waxa weeyaan website clients u sameeya oo sida ku shaqeysta. 3 qodob ayaan ka eegaynaa si su'aasha uga jawaabno. monetization lacag ka sameyn haddii aad website-ka ugu talagashay inaad lacag ka sameyso waxa weeyaan wordpress.com waxba isuma tiidin wordpress self host ama wordpress.org ayaa isticmaalaysa kaasa ku habboon. qodobka labaad waa customization haddaad u baahato website-kaaga inaad adigu customize garayso sidoo kale waxa weeyaan plugins iyo themes third party aad ku sameyso aad full edit ka dhigto ama aad si dhammaystiran aad ugu edit garayso templateska aad sameyso waxa markaana iyadana mar labaad self host wordpress ayaa ku talinayaa iyada ayaa waxa weeyaan ku fiican iyada ayaa isticmaali karta. qodobka saddexaad security and maintenance and SEO saddexdanna adiga ayaa waxa weeyaan wordpress self host wordpress ayaa waxa weeyaan ayaad qaadanaysaa adigu markaa tahay blogger ama qof waxa weeyaan clientska adeeg. laakiin haddii aad shirkad tahay oo waxa weeyaan wordpress aad website lagu dhiso security maintenance SEO-ga waa inaad waxa weeyaan ama aad ku dhisato website-ka inaad waxa weeyaan maintenance iyo security iyo search engine optimization aad sameyso. wordpress.com baa ku fiican creator planka la yiraahdo. muuqaalka intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan filayaa inaad wax ka fahanteen aad iyo aad baad mahadsantihiin. channelkan waxaan soo gelin doonaa channelkan waxaan ugu talagalay waxyaabaha la xiriira ama ku saabsan website-ada iyo technology-da iyo innovation of technologies wixii laga maarmi waayo. marka insha Allah muuqaalka xiga waxaan ku eegi doonaa inaan bilaabo course web development oo aan ka bilaabi doono portfolio corporate blog e-commerce iyo real estate aan wadi doono. waxaan rajeynayaa inaad halkan la socoto si aad ula socoto subscribe saar channelka haddii aan subscribe ku ahayn muuqaalkana like garee. aad iyo aad baad mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad.